dambeeya waad aragteen hadaaqa maaragtay muxuuha dad waalido waaweyn maaragtay maxaan af Soomaali kaga daalinayaa maaragtay caruurteeda Soomaali maaragtay iga wareerineen maaragtay afkii wax lagu helayo Ingiriisi iyo magaranaysa Carabi marka waxa weeye waa halis yani jirta yani waagi ay inta burburkii Soomaaliya ka hor يعني في صومالي وحوا أفكا صوماليا أفكا معاملة دولة تعليمتا ورباهنتا انتبه وحكروها أفكا فنكا يسوقات أي هالبورك وأيضنا يعني هو ماشي وأفكا نولي هاي وهاي كبرتان كنا ساعتك دنيرا سوكريا دنيرا سوكريا يعني أفكا وأف صوماليا وناكسن وهير كسرة وحي كبرنجرين أنا مركي عن كتير ما تدعس يعني هو في صومالي بلدك ومارتي يريرين وحنو إذا عدها ولبا BBC دو أيوه رئيسي إيوه تياترك بقوينا مارتي ملها أفكار رواية إيه صح أيها مارتي يعني هو نوعها وحن ليرا هذا مودر مل لقت المان قاتو أفكار لقى قاتو marka intiiba way takale wuxuu ahaade maartay afka tacliinta iskuulada lagu dhigi jiray marka aruurtii marka ay iskuulkiina dugsiga ku dhiganayaan oo af la soo xulay oo laga shaqeeyay oo muxuu ahaa manhaj ay dad aqoonyahanna maartay Saciid Saalax kamid buu ahaa ay soo diyaariyeen lagu ababiyo iyo suugaan loo soo xulay warbaahin dawladeed oo uu ka tilmaan qaatana ay magaranaysa oo afkeeda la xulay oo ay ka shaqeeyaan nooha dad ku wanaagsan afka riwaayadihii iyo masraxii iyo maartay iyo waxaas hesiina ay maartay oo ku jecel dhalinyaradu marka waxaasa u ahaa marka guriga laga yimaado iyo hooyada lafteedu hooyada maanta joogta ma ahayn waxa weeye si ula kaca ayay maartay yani دكسي واحد وأنا عربي اللي يرادو الأم مدرسة إن أعددت جيلا طيب الأخلاق يعني دكسي وهري وهو يضل مرك هو يضل ويسكوي مركبوا تعلن شتى يعني لحنا قاعدوا شغل دن ويرادو المهم مارتي يعني فورا ما هارن نسان ويتوسينيسي مركا أنت يبغى هو بربري وهي بربري بلا بربري مع هو يلا شيء هو يدي يمرك لقاحين فاميلي مارتي قوسكي بربري وأي كل هذا النقطة هو يعني هو المه دول تاجني أفكاري يوحى ماشي وكبح أنت كمان إسكاب الدادة سكولة دي وربعينتي مارتي قيمة على هاي غرنكا فنكي سوغاتي تياتر كي مقرنا ساي روايدي أي وحكي برانشين دل يرد ماشي فوضى النقطة وحنا متى وحنا ميل لقت المانقاتو دادي سوكر سي أي كتر المانقاتان ما جرتو وي كلامه دبتك لو عليه وحوي الناس يدرها وحابور من مجتمع المجارو مقدسة وحياة وحي نقطي ميل مدل يعني أمدي أورك كل مسا ميل كسوة كي مادان دتلو مجالو بين أف مجالا سما اسمه أفرح أو ستاندر أو مجالو أو كاستي اللي قبرنا يمارتي شغلانتي على بورك يمارتي والباهنتي markii ay waxaas lagu kala tagay dareeno waa jiray maartay qarannimo iyo waxa intii hore markay burburtay waxay noqotay inuu faaqalo waliba inay tay ku noqoto xaafadeedii iyo magaalada tuulooyinku baadiyi meesha ay ka timid meel whatever ay lahjadoodii iyo magaranaysa yiraahdaan waxaan kuwan anaga waxba laga reer hebel baale maartay afkan iyo magaranaysa oo lahjado loo kala burburkii marka afkii waxa la sii burburkii kuma ekaan dawladnimadii iyo magaranaysa iyo magaaladii xataa ay afkiiba waxa loo sii kala burburiyay inay qolo waliba tira anagu kana leesaan aan ugu hadalaa sida ma dhinaca oo ilmihii markuu dhalinyada soo koraysay ay magaranaysa kii standardka ku hadlaa yiraahdo waxaas macaabaad ku ma aha inaga afkeena iyo saamdi marka ka iska badaadee dadkan marka qaxaan iyo muxuu ahaa qurbaha iyo markii la yimi iyo maartay ubadka ku koraya ayadu waa sheeko kala weyn oo حكتي مارتي أكيد ركسنتين لبعتها كتشرت يعني أفكار لكن تاكلين معه إذا واحد فهم سنتين أو ضدك بانكول أي لا فهم سي عروت قربها كوكرا مارتي أفكي وكلوا ما يعني دعك كي وحى الله هذا إنه كوي ودن كي كهرة يشوفه
ay fiican yihiin oo ayagu maaragtay afkii iyo haystaan iyo magaranaysa laakiin taasi ma jirto nasiib dar anigu waa tagaa mar walba maaragtay dhulkii waana joogaa markaan ugu fogahay dee Jabuuti baan joogaa aadaan xoogaa lagu ah aad baan uga naxaa marar badan waxaa dhaama kuwa gudaha jooga maanta oo soo koreeyay maaragtay 20 sano ugu dambeysay waxaa ku dhaama af Soomaaliga iyo maaragtay yani dhaqan iyo waxa caruurta qurbaha ku kortay oo waalid yani xilkas ah oo xil iska saaraya inay ku hayaan afkii iyo dhaqankii yani ay dhaleen baa kaga fiican yani muxuu ahaa yani in badan ayaa la oran karaa maxaa yeelay waxa weeye waalid jaha wareeray oo maaragtay iska galanamay oo aan maaragtay ama waalid la'aan ba hadday doonaan ma jiro yani qoys family maaragtay yani dhan oo meeshii ku haray jooga taasi waa dhinaca kale iskuuladii wax laga baranayay meedii waxaan sheegaynay oo dhan wixii ma jiraan oo meeshii maaragtay ma helayaan bedelkoodii waxaa la keenay afafkaas kale oo kusoo duulay oo waxaaba lagu in badan yani waa lagu diraaba maaragtay af Soomaaliga wax jaahiliyad iyo waxaas iyo baa loo arkaa waxaa la yidhahdaa maaragtay yani af carabiga iyo baa ah maaragtay yani muxuu ahaa afkii ma afkaagii iyo afkii magaranaysa aad wax ku helaysay iyo waxa af carabigii lama diidana laakiin waxaa jira dad u dagaalamaya inay af Soomaaliga meesha uga saaraan carabiga haddii si fiican loo fakarayo iyo dadka sida caafimaadka qaba u shaqaynaya af carabiga iyo Soomaaliga in la isgarab wado af carabiga iyo afafkan kaleba maaragtay ingiriiska iyo in laga faa'iidaysto oo magaranaysaa aqoonta uu xambaarsan yahay maaragtay yani laga faa'iidaysto la barto waa afkii diinta waa af aqoon badan xambaarsan laakiin isla markaa in la wada xasuusnaado ummadani inay af leedahay iyaga ay leeyihiin oo afkoodu inuu yahay af la yidhahdo af Soomaali tahay inaan lagu xadgudbin oo la wada ilaaliyo waajibka ay noqoto in lagu dhigo iskuullada marka waxaasoo dhan markay iswada biirsadeen warbaahintii markii ay soo noqotay awl way burburtay meesha ka wada baxday markii ay soo baxeen idaacado iyo telefishinno iyo waliba inta hore ka badan oo af Soomaali ku hadlaya nasiib darro waxay noqdeen wax habaabiya yani da'da soo koraysa halkii ay awal ay u noqon jireen maaragtay meesha laga tilmaa afka wanaagsan laga barto hadda waxay noqdeen meeshii afka xun yani laga baranayay oo garanaysa caruurta ay yani muxuu ahaa waa aragtay qofkii af Soomaali yaqaan markuu dhagaysto maanta yani idaacadaha iyo telefishinada iyo af Soomaaliga ku hadla websaydyada iyo iska badaa iyaga maaragtay waxa weeye waxa ku qabanaysaa yani waad muusoonaysaa maaragtay yani inaad burburiso maaragtay yani muxuu ahaa idaacadda ku soo dhacaysa mararka qaarkood marka waxa ugu daran muxuu ahaa meeshii aan la wataan la BBC-du waxay ahaan jirtay iskuulka ugu weyn oo maaragtay af Soomaaliga maaragtay yani dhisan oo standardka ah oo tayada loo qiimaha badan maaragtay yani looga daydo waagaan sheegayo aan la maaragtay idaacadahan ka baran jiray maantana waxa weeye yani waad aragteen maanta af Soomaaliga ay BBC-du ku hadasho oo ay ku hadlaan waxa weeye waa jariimad weeye waa faraxumayn weeye abuse yani waxaa la abuse garaynayaa afkii marka waxaan rabay taa inaan ku sababeeyo inay dhab ahaan jirto afkani inuu halis ku sugan yahay hiilna u baahan yahay marka waxa weeye hiilka yuu uga baahan yahay yaa u hiilin kara yaa badbaadin kara sababtu waxa weeye waxa uu hiil uga baahan yahay badbaadinna kara xilkaasina wada saaran yahay in alaala iyo intii garan karta yani xilkaas waxgaradka waxaan la yidhahda waxgaradka Soomaaliyeed wax alaala wixii waxgarada oo Soomaaliya ayuu saaran yahay xilkaas oo danaynaya maaragtay jiritaanka maaha oo kaliya yani afka af ahaantiisa waxa weeye jiritaanka ummaddan oo jiritaankiisu ku jiro qof walba oo hadday meesha ka baxdo jiritaan sharaf leh ay yeelan weydo ummaddu qof yeelanaya ma jiro shakhsi iyo qabiil yeelanaya iyo mid ma jiray marka jiritaanka ummaddu waxa uu ku jiraa jiritaanka afka iyo waxa uu udub dhaxaadka u yahay oo ah dhaqanka iyo waxa halbowlaha nolosha oo ah suugaanta iyo halabuurka iyo qoraalka
inuu noqdo af qoran oo qoraal yani qiimo leh sababtaa awgeed iyo dareenka aan intaan soo sheegay oo dhan yani aan dareensannahay ayaa wuxuu nagu dhaqaajiyey qoladayadan dadka qaarkii ay muxuu ahaa dhiirigelinta ayagoo ku mahadsan ay nagu siinayeen wax fiican baad samaynaysaan oo ah dadka hadda waxaanu isku magacawnaa ama maqalan in cidi noo bixisay iyo inaanu anagu isu bixinay tabliiqa badbaadinta af soomaaliga tabliiq wareega oo sida dacwada maaragtay loo wareego ajarka maaragtay laga raadinayo baanu u wareegnaa oo maaragtay sidana kolayga iyaga iyo waxaa la wareegay meel walba aan leenahay waatan albaabkii laga geliyay badbaadada ummad musiiba ku dhacday baan nahay inaan isbadbaadinaan u baahan nahay isbadbaadinta badbaadada iridkii laga gelaya waa kan bal aan badbaadinno waxaan duntan yani weli isukaya haysa ahna aaladda aan isku badbaadin karro waayo iyada wixii aan wax isugu sheegayn oo tashanaynay ku tashanaynay wallahi war maxaan ka yeelaa dhibaatadan xaggee marra see jiritaan wadana isu kaashan haddaynan afkii aan isugu sheegaynaba oo maarata meesha ka marka tabliiqaas waxaanu si kale erey kale aan isticmaalnaa jira oo la yidhaahdo gurmadka daryeelka af soomaaliga gurmadka gurmad buu u baahan yahay oo idinka arkaa waxaa halista kusoo kool leh marka haddaan loo gurman halistaas kama badbaadaya gurmadkaasi marka waayo gurmadkaas weeye waxaan u qaylinayno waxyaalahan idaacadaha ka maqashaan waxaanu u samaynay ururkan hadda magaciisa aanu ku soconno oo aanu u bixinay naadiga qorayaasha iyo naadiga qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed wuxuu noo yahay aalad aanu gurmadkaas u adeegsano ayuu noo yahay oo aanu ula tagno ciddii ehel noo noqoto hiil wataan lahaa hiildoonka aanu maanta idinku nimi ayaan ciddii yaa maali jiray la odhan jiray yaa waxaan u damqanaya maarata meelay joogaanba waxaa ka mid ahaa tusaalayaasha la soo qaaday inta naga hoos qaaday oo nala qabatay oo maaratay nala gurmatay waxaa ugu horeeya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo markii aanu maaragtay gurmadkaas niri muxuu ayaa maali jiray adigaa jooga meeshaan ma garanaysaa mas-uul soomaaliyeed oo maanta maaragtay waxaan fahmi karaa oo lala miciinsan karo oo asna markaa uu keliya nalama kicin oo nalama gurman ee waa naga horumaray waxa weeye runtii dadaal wuxuu sameeyaa xataa maarata mararka qaarkood annaga ma garanaysaa annaga naga dheeray hadda isagaa dhiirigelin iyo guubaabo yacni weyn oo asaga xaggiisa ka timid ayaa xataa keentay hadda wareegan oo aadan maarata yani noo macnaynayay leeyahay waa in dee ummaddii soomaaliya meelay joogtaba afkoodii ay munaasabadaas yani qiimaha ugu fadhiida weyn afka laysku baraarujiyo oo laga wada qayb galo cid waliba meesha ay joogto ay uga qayb gasho